kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xoojiyay ololihiisa isla markaasna qaaday saacadii aanu ka soo gudubnay tallaabooyin uu ku xoojinayo ololihiisa doorashada xildhibaanada labada aqal oo loo sheegay saddex arin oo waajib ku ah iyo waari iyo goodax bare oo u kala ololeynayaan musharaxiinta Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Qare qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddana ugu cusubtaan ugu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 saac aan u baahino aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalkana sii sheer gareeya laakiin waa inuu muhiim haddana ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan Sheekh Shariif ayaa ololihiisa xoojiyay saacadii tagana tallaabooyin ayuu qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna musharax u tartamaya xilka hoggaanka sare ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa saacadii ugu dambeeyay laga dareemay magaalada Muqdisho inuu xoojiyay ololihiisa dib u doorashada Shariifka ayaa hooyga uu Muqdisho ka degan yahay ku booqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo aad u kala fogaayeen maadaama Laftagareen uu ololeynayay madaxweyne Farmaajo Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in Cabdicasiis Laftagareen ay ka wada hadleen dhamaystirka doorashooyinka madaxweynaha isagoona uga mahadceliyay kaalintiisa doorashooyinka dalka Sheekh Shariif ayaa inta raaciyay in isaga iyo Laftagareen ay isla soo qaadeen muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah looga shaqeeyo in doorashadu ay si nabad ah u idlaato dhanka kale warar uu helay dalka TV Media ayaana sheegay in madaxweyne Shariif uu ka codsaday Laftagareen inuu ka qayb qaato sidii dalka isbedel uga dhici lahaa si loo bedelo madaxweynaha xafiiska sii haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale Shariifka ayaa la kulmay madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe iyagoona ka wada hadlay gabagabada doorashada oo maalinta 15 May ay dhici doonto ta madaxweynaha dalka Sheekh Shariif ayaana kala hadlay Cali Guudlaawe sidii doorashada uga gacansiin lahaa inuu ku guuleysto iyadoo dhinaca Cali Guudlaawe ay u badan tahay inuu taageero Shariifka oo ay isku jufa yihiin Sheekh Shariif ayaana sii wada dadaalada ku aadan ololihiisa doorashada waxa uu wadaa kulamada kala duwan oo la qaadanayo madaxda dowlad goboleedyada iyo mas'uuliyiinta qaar kulamadaas oo uu ku doonayo inuu ku xoojiyo ololihiisa waxa uu sidoo kale la kulmay ra'iisul wasaare Roble oo ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka Laftagareen ayaa la ogsoon yahay inuu aad ugu dhawaa madaxweyne Farmaajo isagoona hore taageero kala duwan ugu sameeyay balse wuxuu hadda ka fakarayaa musharax labaad haddii Farmaajo looga adkaado wareegga koowaad ee doorashada waa sida ay tilmaamayaan wararku qaar dhanka kalena xildhibaanada labada aqal ayaa loo sheegay saddex arin oo waajib ku ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa hadal u badnaa dardaaran u jeediyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi ayaa shaaca ka qaaday in saddex arimood ay waajib ku tahay xildhibaan kasta oo la soo doortay isla markaasna ay tahay inuu ilaaliyo gudoomiyaha ayaa sheegay in xildhibaanada laga rabo inay ku dhaqmaan dastuurka inay u adeegaan dadweynaha soo doortay iyo midda saddexaad oo ah damiirkooda qof ahaaneed xildhibaan kasta waxa waajib ku ah saddex arimood oo ah inuu u hoggaansamo midda koowaad waxa weeye waa dastuurka tan labaad waxa weeye dadweynaha soo doortay tan saddexaadna waxa weeye damiirkiisa qof ahaaneed ayuu yiri Cabdi Xaashi sidoo kale wuxuu xildhibaanada u diray fariin la xiriirta doorashada madaxweynaha isagoona ka dalbaday inay doortaan qof badbaadin kara dalka sidaas daraadeed baarlamankeena waxaan leeyahay in xubnaha inoo soo jeedinayo fikradooda inaanu dhageysanaa waa waajib kadib waxa weeye qof waliba waa damiirkiisa inuu ku doorto qofku uu isleeyahay dalka uu badbaadinayaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo 15 bishan May xildhibaanada labada gole ay dooran doonaan madaxweynaha hogaami doona dowladda cusub 4 sano ee soo socota وهاجي داود يالي مكان وحن ويجينا واري يجود حبرنا وحا أيه وكلا ولينيان مشارحين الشيخ شريف يا حسن علي قير iyadoo la galay maalmihii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha oo dhacaysa 15 May 2022 ayaa siyaasiyiinta kala duwan waxa ay kala taageerayaan musharaxiinta ugu cadcad ay u tartamaysa xilka madaxweynaha madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo kamid ah siyaasiyiinta muuqda ee ku jira ololaha doorashada ayaa taageeraya dib u doorashada madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu dhinaca kale weerar ku hayaa musharaxiin uu kamid yahay ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qare Waare oo dagaal siyaasadeed uu dhaxmaray isaga iyo xukuumadii Qare kaas oo salka ku haya arrimo dhaqaale oo Waare laga hor istaagay ayaa hadda ololihiisa doorashada inta badan ku weerara musharax Xasan Cali Qare
dhinaca kale wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka mid noqday taageerayaasha u ololeynaya musharax Xasan Cali Kheyre isagoo ku doodayay in waxqabadkiisii la soo arkay intii uu ahaa ra'iisul wasaaraha ayna ku filan tahay inuu noqdo madaxweyne. Goodax ayaa tilmaamay in waxqabadka ugu horeeya ee Xasan Kheyre uu ahaa dib u habeynta ciidamada, cid kastoo sheegatana uu isagu xogogaal u ahaa wax aad u weyn uu ka qabtay iyo arrintii deen cafinta. haddii uusan isagu ra'iisul wasaare ahayn ma jirteen cid haweysan karta in laga baxo ma jirto, ayuu yiri Goodax oo xilli oo arrimahaasi ka hadlayay. Sida Cabdullaahi Goodax Barre iyo Maxamed Cabdi Waare oo hal deegaan ka soo wada jeeda ay ugu kala ololeynayaan musharaxiinta, ayaa haddana dhinaca kale waxaa jira siyaasiyiin badan oo xildoona lana kala safan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Siyaasiyiinta ayaana u kala ololeynayaan musharaxiinta ee u arkaan kuwa ku guuleysan kara xilka ugu sareeya dalka Soomaaliya si ay hadhow uga helaan markii uu talada dalka qabto mas-uulkaasi xilal ay ka mid yihiin wasiiro, saraakiil ciidan iyo in loo magacaabo xafiisyo kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Siyaasiyiinta ayaana waqtigan oo kale juhdi badan ku bixiyaan oo ololeynta musharaxiinta, kuwaas oo kala jiidasho ku wada xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxayna ka saacidaan inay u soo xirigeliyaan xildhibaanada qabaa'il ahaan ee isxigaan, taa oo siyaasiga u sahlaysa haddii uu musharax uu taageerayo ku guuleystay xilka madaxweynaha inuu boos fiican ka helo dowladdaas 4 sano ee dalka ka jirto. musharaxiinta madaxweynayaasha Soomaaliya ayaana hadda ku jiraan dadaalkoodii ugu dambeeyay ee ku aadan ololaha doorashada madaxweynaha oo loo madalsan yahay 15 bishan oo ah maalinta Axad ee bilowga toddobaadkan soo socda. Muqdisho ayaana si weyn looga dareemaya ololaha, sidoo kalena waxaa jira in ammaanka guud ee magaalada Muqdisho si weyn loo adkeeyay. Wadooyinka qaar ayaa lagu arkayaa ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda, haba ugu badnaadaan kuwa booliska oo sugaya amniga magaalada, baaris xoogan ku wada gaadiidka noocyadooda kala duwan. Shacabka Muqdisho oo dareemayaan culayska doorashada ayaa haddana dhanka kale waxa ay ka dhuur sugayaan halkay aadi doonto natiijada doorashada iyo shaqsiga loo dooran doono xilka madaxweynaha Soomaaliya. Muqdisho ayaana muddo dheer foolanaysa arrimaha doorashada, waxaana toddobaadkan laga sugayaa in ay soo saarto madaxweynaha cusub ee hogaamin doono dowladda Soomaaliya 4 sano ee soo socota. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media, fadlan daawade hadda nagu cusubtaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 saacan u baahino. aragtidiina halka oo noogu reebo muuqaalkana si share gareeya, laakiinna waa inoo muhiim daawadayaal waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.